dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرداد قيمها بدن له يجلس على هوده أما ما أنت عشر كان لص على وادي سلامية ومع أحمد عبد الرحمن وذكرنا إنسان وحمادين الصومالية عشر كيلو وشكدي تحنها هيد بقيله يحاسك صاحب كها قيبته دي لبعض بقوا تضباطن إلى صدحية تضباطن عشر وشكدي بقيلها يحاسك وحي نوسو جوكتي مقيله أو مرتي تجي يحاسك إنه جورجي كسر دوي أو هبين كيسي وشي كيسينين صقدي لحيسكو قارين كدبنا وبقيله قاعن صدي إنه عاو هالكن سكتشوجو ما دام وجذعر مدون قطعي oo inay baxala kala goostaan qabaq laakiin habeenkaas waxa jirtay dhaxan daran markii uu dareemay dhaxantii bakaylihii ee uu seexan waayay ayuu aad u garaacay albaabkii xaaska waar saaxiib iga fur buu yiri go'ay waar dhaxan baa meesha igu dishay iga fur yaxaasku uu hurdo badan yahay baa la yiri yaxaaskii khuuro ayaa uu ka jaray saaxiibkiisii garaacay albaabka dhagaba uu yeelan بكايله وحويري فضلا يغفر البابك وحا هيسا دحندرني دحندرن با هيسه ان كسو غلا البابك يغفر لكن يحاسكي مانو مقل waxa uu ku jiray hurdo dheer ay ku jiray oo xuurinay hurdada dheer waxa weeye hurdada aad xuuriso ee marka xuurada ka soo baxaysa marka dhagahaagii xitaa jabaqdi bay joojinaysaa aad maqli lahayd بكايله آد أيو ودحمو ذي هبيكاس وحبا هلاي دحان درن وحا او مركله قراعي هدنا البابكي إساقو قيلين ايا وقاقض هيا يحاسكينا مو مقلين مركي يحاسكي البابكي مقلي وايي او كقوستي عن وحبا مقل وحا كل شيء بكايله يرى ريه oo waxa uu go'aansaday inuu tabshito hadaba ninkii maqli waa hurdadiisii buu iska sii watay dhaxantiina halkeedii bay ka socotaa way istabatal kolba way soo badanaysaa bakaylihii yaraa uu gariiray dhaxan buu istaagtaagay uu boodbooday uu qayliyay dhulku isku dhuftay haddana uu ka soo booday haddana uu fadhiistay haddana uu cararay cidi laakiin uma bixin cidna uma bixin waxa ku dhashay markaas tala ku dhalatay taladaas waxay ahayd inuu ka maarmo yaxaaskan albaabkiisa oo uu bal fikrad kala keeno oo uu diirimad ku helo wuxuu go'aansaday inuu dabshito isagu dab ma haysto oo cid dab ka soo qaata meesha ma joogto yaxaaskina waa iska hurdaa albaabkii furi waa dabadana cid kale ma joogto dabada dambana uma bixi karo oo bahaliibu ka baqanaya dee caawaba uu ka dhaxay uu u soo bixi waayay wuxuu soo qaatay arday laba ulood oo isku xoqay waxa uu isku xoqay laba ulood si uu madag uga dhaliyo dabna ka dhaliyo waxaynu maanta maqlaynaa waxa la yiraahdo madag macallin madagtu maxay tahay madagtu waxa weeyaan kulka laba qori la isku xoqo ee ay isla sameeyaan waxa la yiri baa la dhirta oo dhan way leedahay dabka laakiin se way ku kala wanaagsan tahay oo qaar baa ku dhagan nugul geedaha aadka ugu madagta wanaagsan leh waxa kamid ah geedka jiica la yiraahdo meeygaga kamid ah geedka la yiraahdo maxaan ku raahday kidiga ayaa kamid ah dhirta dhuuxa adag leh oo dhan ayaa sabab dabka laga dhaliya sideeba dabka looga dhaliya laba qori baad soo qaadaysaa oo isla leeg mid baad dhexda daloolinaysa halka bartimihiisa ayaad yar qodaysaa quraarad yar baad ku qoranaysaa ama makiinad yar jirifta horena waad ka qaadaysaa geedka first marka hore hadda waxaad ka diiraysaa jiriftii geedka waad ka diiraysaa ma ka diirtay xaggana waad ka goynaysaa dambe xaggana waad ka goynaysaa barta dhexdiisa diir godaysaa in qalinku qabsan karo oo kale afkiisu
kadibna qalinkii kale ayaad saa ugu qabanaya qorigii kale ayaad saa ugu joojinaysaa bartiirida godniid dabeedna farahaaga saa qoranaysaa waad ku haynaysaa dabeedna waxa imanaya isliskaasi markuu yimaado meeshii ay iska xoqayeen labada qori ayaa qiiqaysa waad ku wadaysaa way yar cadaanaysaa waad ku wadaysaa way yar casaanaysaa waad ku yar wadaysaa way yar dhalaalaysaa haddana dabkii baa isqabsanaya way huraysaa xashiish yar iyo caws yar baa saaraysaa kadibna qiiq baa baxaya waad fufaysaa wuu ololayaa dab baa buu noqday dabkii waxaa laga dhaliyay qoryaha dabka laga dhalinayo ee la isku xoqayay magacooda ayaa madag la yiraahdaa markiiba waxa uu dabkii ka helay diirsimaad oo uu diirsaday uu kulaalay dabkii buu kulaalay oo diirimaad fiican buu ka helay waxaanu ka raystay dhaxantii darnayd ee habeenkii oo dhan haysatay hadda bakaylihii wuu faraxsan yahay oo wuu boodboodayaa laakiin muddo yar kadib ayuu dabkii ilay dhaxantii baa weli istaba taale ayuu ka baqtiyay oo wuxuu u baahday xaabo kale oo dabku wuxuu cunaa shidaalku cunaa waa xaabada hadday xaabadu yaraato dabkii uu baqtiyaya waa inay xaabadu istaba joog u ahaataa oo ay ag taallaa markuu yar huraba waa in la soo jiidaa oo la saaraa oo la ololiyaa haddana mar labaad haddii aad xaabada hore ay wada baxdo oy wada olosho oy wada dhuxul cas noqoto wixii ka dambeeya waa dambas waxa weeye markaas inuu baqtiyo ayay u dhowdahay sidii baa dhacday dabkii baa ka baqtiyay bakaylihii ayaa isku dayay inuu xaabo soo gurto haddaba laakiin waa u waayay xaabadii mar dambe ayuu bakaylihii arkay caws jabbo waa ka dambeeya talow cawskaa maxaa ku jira caws buu arkay engegan weliba oo meel yar lagu tuulay oo meel yar yaalla isla markiiba waxa uu arkay beed haddana lagu qariyay cawska hoostiisa waxa uu soo qaatay beedkii talow beedka ayaa lahaa ma beed loo sii dhigaybaa ma shimbiro kalaa beedkaa lahaa beedka ayaa lahaa baad u malaynaysaa beedkaas uu bakaylihii helay ee cawska ku hoos jiray talow yaa lahaa ma goro yaa lahayd ma diin baa lahaa ma shimbir baa meesha dhigatay jabbo waa ka dambeeya talow beedka ayaa sheegan doona beedkaa la arag yaaba dhibaato la arag dagaal la arag colaadid timaaday culooba saaxiibadii ishayey ee marti isgeliyey bal hadda beedkaa cidda yeelata beedkaa waxaa lagu fali doono cidda sheegan doonta mayaxaaskaa sheegan doona bakaylaha ku murmi doono oo doonaan beri hore ku qarsaday meesha arday weyno iyo casharka ka dambeeya oo beedkii iyo meeshu ka dhacay beedkii inoo sheegi doono oo inoo sharaxi doono inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa darsigiinu maanta halkaa inoogu joogo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dugsiyada al irshaad Schools